Bismillahirrahmanirrahiim waxaanu wanaagsan khiyaarta hawada iga daawanaysa ku soo dhawaada wararkii caalamka kuwoodii ugu dambeeyay wadahadahan oo kale ka daawataan page-kan muuqaal wareedkan soo socda waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan hadduu eebbaweyne idmo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Mareykanka oo dhulka ku jiiday Netanyahu haddaba sidee wax u jiraan intaan ku soo faahfaahin qodobkaas oo faahfaahsan fadlan muuqaalka leega saar oo share garay ayaantan waxaan dareemayaa xogaa dib u dhac xagga viewska fadlan muuqaalka share garay saaxiibayaal aynu ku bilowna saad muuqaalka hordhiisa ku maqleedeen saaxiibayaal madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Mareykanka DJ Vance ayaa eedeyn culus u jeediyay ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu isaga oo ku tilmaamay shakhsi caadaystay bilaabista dagaalo cusub kadib markii guulo hordhaca la diiwaan geliyo kaasoo colaadda bariga dhexe ku sii riixaya hadba ama dab ku sii shidaya waa suwarka uu dhigay saaxiibayaal DJ Vance hadalkiisii wata ayaa wuxuu sheegay wuxuuna uu ku tilmaamay Netanyahu in uu ku lug leeyahay qalalaasaha isdabajooga ah ee uu ka sameeyo bariga dhexe kaas oo si weyn xaaladda amni ee bariga dhexe iyo siyaasadda gobolka u bedelay inkasta oo Mareykanku uu marar badan taageero diblomaasiyadeed iyo mid amni u sameeyay Yahuudda dalkaasi Israa'iil wuxuu sidoo kale sheegay in Mareykanku uu si joogto ah u garab istaago go'aamada Netanyahu ee hore xitaa markii ay jireen digniino la xiriira buu yidhi sidii loo horin lahaa colaadda ama xiisadda dagaalka ee ka socda bariga dhexe waa siduu warka u dhigay DJ Vance saaxiibayaal DJ Vance ayaa sheegay Mareykanku waxaan ku matalayay buu yidhi dadaaladii dhowaan ay la yeesheen Iiraan waxaan hore loo arag ayaan muujinay iyo dhaliila uu u jeediyey Netanyahu inkasta oo uusan si toos ah ugu eedeyn erayo qallafsan ama adag oo si rasmi ah saaxiibayaal dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa isna toddobaadkii hore si adag u cambaareeyay Netanyahu isagoo uga digay inuu kor u sii qaado ama uu sii huriyo xaaladaha bariga dhexe ee sababay khasaarooyin badan oo siyaasadeed iyo marinbiyoodka Hormuz oo gebi ahaanba xidhmay macluumaaddan iyo macluumaad kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan muuqaalada dambe fadlan muuqaalka leega saar oo share garay nabad